horta magacaygu waa Ismaan Axmed oo ku magac dheer waa loo ooyi marka taariikh nololeedkay haddaan ka hadlo shaqadayda harqaanka waxaan bilaabay anoo 15 jir ah markaas muddo aan ku jiray 45 sano aan dawaarka tolaayay markaan xamar aan joogay dukaanka shaqada aan ka bartay Hargeysa aan aaday marka xamar markaan ka soo tagay waxay taariikhda 1977 ama 1977 xamar ayaan ka soo baxay waxaan aaday Hargeysa markaas meeshaasaan joogay dukaan baan ka furtay si fiican baa la soo dhaweeyay magaalada waa dad aad iyo aad u fiican waa magaalo qabow ah oo fiican waan ka soo shaqaystay muddo waxaan deganaa 4 sano ilaa 8 miidan ka soo baxay xamaraan ku soo laabtay xamaran dukaan waan ku soo furtay waan ku guursaday caruur baan ku dhalay aan caruurteeda wata markii dagaaladii dhaceen 92 waa soo qaxay waxa imaaday Kenya waan laga soo qaaday qaramada midoobay soo qaaday markii ugu horeysay Mareykanka maanay sigiskii waxaan ka bilaabay warshad oo ku taalo Minneapolis oo koofida lagu talo oo arkaan loogu shaqeeyo muddan ka soo shaqaystay aad ba u fiicneed waa shaqo fudud waxay u fududaan jirtay sababtoo professional waxa shaqadeeda ayaan helay oo Mareykanka aan ku bilaabay markii ugu horeysay shaqada meesha aan ka shaqeynaa kadibna waxaan furtay dukaan oo dharka waaraadkan soo gaday jirnay dadka wiilasha Soomaaliyeed waxaan u tuli jirnay surwaalo halkii surwaalna wuxuu ahaa qiimihiisa waa $50 ilaa $60 ku tuli jirnay marka lacag fiican baan ka sameey jirnay wiilashiina niida u dhisnaa anaga niidayno dhisi jireen sababtoo ah waa naga toli jireen aad bay u fiicnaa shaqada markii dambe waxaan aragnay shaqada inay hoos u socoto aan waxba dhalinyartii ka gadaninin meesha waxaaba ka bilaabatay China ina dadkii aadaan oo alaab jaban laga keeno marka waxaan buwaayna wax naga toshto anaga surwaalo ata ma haysanin sababtoo ah markii hore Mareykanka shaqo yaala markii China soo baxeen shaqadii dhanba dhulku galay wax aan tolnaan buwaay qofna imaadan buwaayni marka waa fikirey markaas waxaan dhahay arintan fiiri systemka aan waxa u bedelay inaan China aado alaabtii ka keeno inaan gagado marka sidii businesskii aan ku fiicnaynay alxamdulillah hadda businesska aad u fiican markii dambe businesskii waxaan ku daray furaanado oo maartay oo dadkii waxaan ku arkay marka Soomaalida rag iyo dumar inay ka sheekeeyeen qabiilka aan waxaan arkay marka inaan meeshaas inaan duleel fiican aan ku soo arkay oo wax laga sameyn karo lacag marka qabiilada waxaan ku qoray Soomaalida aad bay u jeclaadeen waa iyaga gatay lacag badan oo badan ayaan ka sameeyay naftigay waa soconaa isma dhaynin riski loo shay galiyay marka waxaan ogaaday in Soomaalida inay jeceliyeen qabiilkeeba aan u qoray waaba jeclaadeen sidaas magac iyo adduunyo ku yeeshtay marka waxaan businesskii lacag ama ka sameeyaa maamul goboleedyada caalamka aad bay u jeceliyeen week kasta shir ay qabaan shirkan ay imaadaan caalamkii bay iga gataan marka waxa kala jira caqabad oo xun baa jiro ani kharash baan galaa caalamkii sameeyna marka waxay sameynayeen marka maamulka isbedelo caalamkii hataa waa bedelaan kaasna qasaar xoog laan ku qabaa laba caalana arkay galmudug waa sameeyay على واحد بان سمي إلى كنتم كن عبو عايزين كان أنكو شبه تي كلا DDS آيا ولا بدلة سومالي ستيت باي كدكتان أنت وكنتم كن لحظة كن بان سمي مال بإيالين مركا وحني ليه وحاس قصارة نجد داي ولا ليالو